maanta waxaan doonaynaa inaan shirka jaraa'idii aan ku qabanay Fadlan Hardool magaalada Boorama annaga oo ah duqeydii maxalase sultaankii guud iyo salaadiintii iyo uqaashi kale iyo gandihii baabar cali qadiyadii ninka lagu dilay ee ka dhacday hoos wadajir ayaa halkan doonaynaa inaan ka hadalno waxaan ka hadalnaa waxay tahay haddaanu nahay odayaashii beelaha maxadase waxaanu dhex galnay xurguf iyo khilaaf soo dhex galay wafdigii xukuumaddu ay soo dirtay ee ka koobnaa 4 wasiir iyo barasaabkii gobolka Sanaag iyo guddida nala fadhida oo guddidii gandihii beesha baabar cali khilaaf soo kala dhex galay oo arintii dhiigii wadajir ayaanu galnay arrinka anagu hargeysaan u tagnay haddaanu nahay madaxdii reerka waanu is aragnay madaxdii qaranka wasiiro iyo madaxweyneyaalba waan soo aragnay hawshaa waxaan ku soo dhammaynay nabad in wixii khilaafkii soo kala dhex galay aanu xalilo xalkeediina uu noo soo dhammaaday isafgarad iyo wanaag baanu ku kala nimid arrinkii saasaan ku soo dhammaynay walaalahayo oo nala fadhiya maanta oo gandihii baabar celiyana waxaanu isla qaadanay iyaguna inay hawshaa nala qaateen oonu hawshii ku dhammaynay sidaa wixii ka dambeeyana loo gudbi doono sidii ballankii la qabtay 15 cisho la qabtay in la tago fulinteedii oo shuruudihii halkaa la dhigay ay guddidu dhigtay ee la wada garanayo shuruudihii marka la fuliyo ee ay fulaan dabeedna halkaa wada hadalkii lagu bilaabo arrinkayagu arrinkaasi ku saabsan yahay haddaanu anagu nahay guddidii dhexdhexaadinaysa arrinkaasi dhammaysana waxaan bulshada u sheegaynaa wax dhibaato oo jirta inaana jirin odayaashiina iyaguna ay hadli doonaan hawshaasina ay sidaa nagaga gabagaba tahay kulley waa sida uu suldaanka guud sheegay weeye arrintaasi waxaanu mahad celinaynaa annagu qoladayadii maxadcase wixii dawladda aanu la tagnay maadaama ay naga aqbaleen aad baan ugu mahad celinaynaa intii aan la kulannayba waa uga mahad celinaynaa waxaa kaloo mar labaad u mahad celinaynaa odayaasha ama gabdhaha baabar cali oo iyaguna tii aanu la nimid naga aqbalay iyagana waa u mahad celinaynaa kulley arrintu sida uu suldaanku sheegay muddadii la qabtay ee xukuumaddu qabatay ayay wax waliba dhammaan doonaan haddii ilaahay idhaahdo waxay dawladdu ballan qaaday iyaduba way og tahay in la keeno xagga baabar celina wixii ay diidanayd wanaga ka wada hadlayna inay ogoshahay maanta in la wada hadlo oo miiskii iyo muddadii la iskugu yimaado way naga aqbaleen iyaguna uqaasha iyo gandaha baabar celiba waan isla qaadanay nabadgelyada in la sugo waan isla qaadanay gudbinaya ummadda Soomaaliland oo dhan meeshii doonaan baa joogaan waliba waxa si gaar ah ugu sii gudbinaya beesha aanu ka soo jeedo ee geeridu ku dhacday oo aad iyo aad noo ixtiraamtay inaanay fal dambe fal celinin oo halkii iyaguna lagu sugaaya salaanka dib waan hadalka uu sheegay Suldaan Ibraahim oo soo dhaweynay suldaanku ee salaadiintayadii shaqaaqihii ka dhacay halkaas in isku fahmi weynay xukuumadda waftigii ka socday oo dhanna waliba wax uu fikir ka hadlayay oo aanna wax colaaday wax dil midna dhalinin oo dambe ayay iska xil saareen arrinta galaan way tageen Hargeysa kulli sida ay noo warameen afgarashay kala yimaadeen annaguna afgarashadii ay wadeen waan soo dhaweynay waxaan marka horeba isagu aan shaki ku jirin oo aan waftigii horeba isla ogeyn qodobka la dhaan nabadgelyadu inuu halkiisii fadhiyo ayadoo aan horay u ballan qaadnay nabadgelyada dhinacayaga inaan mas'uuliyadeeda ka adagnahay sidii uu suura galay ilaa hadda waa sidii nabadgelyada hadda maanta lagu taagan yahay waxaan islaanahay qaybta koobaad lambarka koobaad oo idinka kaga jira maadaama ay dadkii dhibtu gaadhay oo ficilkii Soomaaliya ka iman jireen oo mar walba ka imaanayay
oo annaguna aanu iska xil saaray way ogaayeen waxaana ka nooga markhaati fureen qodobkaasi in halkiisii fadhiyo aanu jabin waxa kale oo wuxuu ahaa oo kulli safgarasho la'aan alaayi kulli xaal shaqaaqihii ka dhacay de waanu ku kala dudnay annagu horta ma aanaan baxsan laakiin waxaanu imanay beeshayadii oo si aan arrintii u sii adkayno aan la joognay laakiin fikrad badan baa laga qaatay oo in aan buur gallay iyo inaan baxsannay iyo rag wax waa isku diidaan dee taa macnaheedu ma ahayn balaayo meesha ka dhacday waxay ahayd inaynu arrinta halkeedii un baanu la sugaynay halkan Suudaanku waa Suudaanka yagii guud gududuna waa gududayadii waa maxamad case oo waxlaha yagii kulay waan aqbalay balka ay soo qabteen ee ka kooban 15 maalmood in aanu ajiibno aanu wixii tabashooyin iyo hawlo dambeeyeen halka lagu dhameeyo kulay intaan waan isla qaadanay oo waan isku afgaranay